Hana Abuukar oo maalmihii ugu dambeysay si weyn loo hadalayay ayaa waxaa lagu xidhay magaalada Muqdisho xarunta dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay in ay ka ganacsato carruurta kaliyahooda isla mar ahaantaasina la sheegay in maalmihii ugu dambeysay ay ku kala bixinayso safaro kala duwan gobolada dowladda federaalka Soomaaliya sida gobolka Banaadir, gobolka Dhuusamareeb. Waxaa la sheegay sidoo kale in ay faafinaysay diinta Kiristaanka. Hana oo 24 saacadood ee la soo dhaafay ku xidhnayd saldhigga dhexe ee magaalada Muqdisho, balse waxay sheegtay in ugu dambeyn la soo daayay. Sababta loo soo daayay Hana Abuukar ayaa ah in la damiintay isla mar ahaantaasina baadhitaano dheeraad lagu sameynayo kadibna wixii ka soo kordha warbaahinta lala socodsiin doono. Waa sida uu sheegay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir. Hana Abuukar oo ku nool dalka Sweden waxay baraheeda bulshada ay ku leedahay sida Facebook iyo YouTube ay ku soo gudbin jirtay muuqaallo anshax xumo ah kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen qaar ay isticmaalayso daroogada nooceeda kala duwan. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay gabadhan Hana ee rabta in ay ka ganacsato kaliyaha bini'aadamka ma cid baa la wada qorshahan mise waa keligeed, balse wararka qaar waxay sheegayaan in ay hay'adan dabada ka maamulayso taasi oo qandaraas dhan ku siisay hadba inta ay kaliya keento in ay lacagteedu si laba jibaarmi doonto. Waa sida ay wararku sheegayaan.